Assalaamu calaykum waa Dr. Mowlid ku jiro dhammaantiin bid salaamaya mar kale iyo waa faytamiinadii kana waa ka u dambeeyeen ka soo qaadanayne waa faytamiinka marka faytamiinkeega labaa tahay oo 1 iyo 2 baa tahay waan iman doonaaye maxay hayday horta marka hore si guud waa fat soluble weeyaan ku milma baruurta laga wadaa ama marka la soo nuugayo raaca dufanka markaas raaca marka la soo nuugayo marka halkaas markay marayso sidii kii horeba maartay fat soluble-ka u sheegay waxa weeyaan khalkhalada ku iman kara ama vitamin K deficiency waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah wax kastoo sababa in bahasha la soo nuugi kari waayo baruurtaas ama ha ka timaada xagga maaragtay beerka ama ha ka timaada hab maxay hayday ganaca ama isla mindhicirka laftiisa marka saasa marka halka fat soluble waxaan xusayna waa taas waxa weeyaan muhiimadiisu ay tahay waxa weeyaan wuxuu ka qayb qaataa xinjirowga dhiigga blood clotting ama coagulation-kaas ayuu ka qayb qaataa marka wuxuu ka qayb qaadanaya waxa weeyaan waxa uu meelaha ay qabsato calciumtu ayuu sameeyaa ama maaragtay ka qayb qaataa oo waxa weeyaan coagulation factories waxa la yidhahdaa ka hore uga soo sheekeynay hadda daba soo socotay waa dan la hadlaya dad rag caafimaad tahay dhanka pathology aan kusoo sharaxay ciladaha ku yimaada hab socodka dhiigga ama hemodynamic disorderska baan kusoo sharaxnay marka si faahfaahsan dadka ka maaragtay arki doontaa marka daalacaan doontaa marka waxaa jiray meelaha aan kusoo qornay hadayta intrinsic pathway iyo extrinsic iyo intrinsic waxaa jiray factorieska gaar ahaan waa kuwii ka qayb qaata waa ka labaad ka toddobaad ka sagaalaad iyo tobnaad marka calcium wadaga arkaya meelaha ay qabsanayso waxa weeyaan isaga fududeynaya keega fududeynaya hadii kan la waayo taasina maaragtay ma hawlgeli karayso sidoo kale maadaama arrimaha calcium iyo qabsigeeda iyo shaqadeeda ka qayb qaato waxa ay uu ka qayb qaataa xoojinta lafaha marka haddii isagana la waayo waxay ka dhigantay lafihii baa noqon doona qaar milma ama noqonaysa dee maaragtay aan lafa xooga ma jiri wax noqonaysa osteoporosis waxa la yidhaha xanuunka la yidhahdo kale marka waa lafa holan miyaa ay noqonaysa marka waa taas saasuu bahalkani maaragtay vitaminkeegu muhiim u yahay walow sidoo kalena mar haddii laga hadlayo coagulation iyo clotting iyo ama maaragtay xinjirowga dhiigga iyo arrimahaas dee xanuunada wuxuu saameynaya marka dhiigga iyo wadnahaba haddii hoos u dhaco cunooyinka laga helo haddaynu u nimaadno marka vitamin K1-ka waxaa loo yaqaanaa phyloquinone tan kale waxaa loo yaqaanaa 2-gana waa menaquinone waan laweynan K2 ku qoran marka calaa kulli xaal halka baa ka sheegi doonaa afka baa ka sheegnay waladaas magacyadaas ay kala leeyihiin K1 iyo K2-gu K1-ka waxaa laga helayaa maaragtay khudaarta caleemaha dhaadheer oo dhan spinachka haday noqoto saladka ha noqoto cabbage-ka ha noqoto waxyaabahaas baa laga helayaa dhanka kale tan loo yaqaano menaquinone marka quinones baa loo yaqaana labadaba waxaa iyada laga helaa K2-ga cunooyinka la khamiiriyo ay noqoto haday tahay dee ciirtoo kale iyo waa laga heli karaa waxaa laga helaa hilibka iyo beedka iyo burcadka waxyaabahaas iyada way yari wax laga helaa laakiin waxa aad ugu badantay iyaduna gadka maaragtay bakteeriyada ku jirta ama mindhicirka bakteeriyada ka hawlgasha ayay iyadana soo saarta keeda marka bakteeriya waa bakteeriya laakiin qaarkood baa aad u muhiima oo sidii casharada aan kasoo sheekeynay microbiology-ga barashada noolayaraha wax badan baan kusoo faahfaahinay inoo kasoo sheekeynay bakteeriyada dhibteeda haddana waxaan kasoo sheekeynay lafteeda faa'iidooyinka bakteeriyadanka qaar ay leeyihiin oo haddii iyaga laftooda la laayo ama saynu iman doonno waxyaabaha keenaya vitamin K deficiency-ga waxaa ka mid noqonaysa bakteeriyada maxaa antibiotics ama broad spectrum kuwa la yidhahdo ama maaragtay bakteeriyooyin fara badan askax ka gura haddii loo qoro waxaa dhacaysa inay xataa layso kuwii wanaagsan maaragtay hawsha u waday bilaadanka marka waa taas waxyaabaha sababa haddaba vitamin K yaraanta waxaa ka mid ah inay dhibaato ka jirto
soo nuugitaanka mindhicirka yar ee dufanka duxa amaba baruurta hadba sidii aad u taqaano waxaasoo dhan walow baruurta marka ay soo go'do la dhahay hadii la taaban karo laakiin dux iyo dufan oo marka ay dareere yihiin marka waa taase waxyaabaha ka qayb qaata burburinteeda hadday tahay in saamiyada laga soo daayo ganaca hadday tahay maxay ahayday xameetida qaraska laga soo daayo ama baylka la dhaho hadday tahay waxyaabahaas waxay kasii noqdaan labada maaragtay dhinac way keenaysaa amaba isla maaragtay dee isla mindhicirka yaroo dhibaata ka jirto xanuuna ka jiraan iyadana way keenaysaa marka taas waa taas tanna waa taan soo sheegnay ku xigtaano waa haddii loo qoro antibiotics waqti dheer ama in la qaado waa sababta antibioticyada waqti kooban loo joojiyo marka la qaato oo loogu talagalay week ama 2 toddobaad meelahaas haddii loo qoro soo kale spectrum main kasoo hadalnay broad spectrumka kuwa ah oo ka dhigani bakteeriyooyin maxay dawooyinka lidka bakteeriyada laaya bakteeriyooyin fara badan inay kuwaasna layn karaan kuwa laftooda soo saara vitamin K saadaratin loo waayo carruurtu iyagana way ku timaadaa oo ilmaha yaryar hadda dhashay vitamin K deficiency uu helay sababtoo ah waxa weeyaan iyagu weli maaragtay carruurtaas mindhicirkooda ma samaysan malay bakteeriyooyinkan ku jira inaga dadka waaweyn ku jira iyaga ma laha marka waa taas caanuhuna aad bay ugu yar yihiin keegu marka naasaha laga siinayo waxa kale oo keeni karta ilmuhu inuu lafteeda ku dhasho cillada ay keentay dawooyinka la dhaho anticonvulsantska marka teratogenic waxa weeyaan waa sumow bay noqonaysaa ama dhibaato dawo keenta la dhaha gaar ahaana waa goorma marka urka ilmuhu ku jiro dawooyinka la qaato dhibaatada keena waa teratogenic la dhaha anticonvulsantsna waxa weeye dawooyinka loo qaato suuxdima waxaan saa ugu faahfaahinayaa waa qofkii kale in bahda caafimaadka ahayn intii ahay garanaysana waa garanaysa marka waa taas oo dawooyinkaas loo qaato gaar ahaan suuxdimaha loo qaadanayo hooyadu qaadato inta uur leedahay ilmahaas wuxuu ku dhalanaya iyadoo maaragtay isoo markiisa horeba dee newbornka la sheegay maaragtay ay tahay waayeen in xaaladda ku sugayay tanna waa uga sii daraysaa cilladaha haddaba ay keenayso vitamin K yaraanta ama la-aantiisu waxa weeyaan dhiig bixis bay imanaysa sababta wax ku dhacaan oo kale aad buu qofku dhiig baxi karaa fariin badan baa iman kara maadaama nidhidee xinjirowgu ka shaqeeya warkiisu maaragtay shaqadiisu tahay dhanka kale qofka hadday maaragtay wax lagu arkayaa sugar hadday ku dhacdaan waxyaaba maaragtay dee aan saa u badnayn in qofka ay easy pollution noqon karto hadii farta saa loogu taabto jirkiisa marka waa meel kusoo maysmayo waxa weeyaan waxa kor u kacsan maaragtay increase BT prothrombin waxa la dhaho timeka ayaa kacsan ama ayay disaraysa markuu jiro halka vitamin C-ga ay taasi hooseyso normal bleeding timeku waxa weeye bleeding timekiisu qofka wax xilli caadi ah oo haddii qofka meel wax ka jarmaan oo kale ama qofka iyadoo la eegayo irbad yar lagu mudo la eego xilliga intuu ku joogsanayo waqti loo qabto kani waa caadi waxa weeye waqti dheer ma qaato halka vitamin C-ga ay in bleeding timeku uu sareeyo marka halkaas labadaas bay maaragtay labadaas isku weydaarsayn inta badan lagu kala saaraa marka taasina waa taas dhanka hemorrhage waxa weeyaan waa vitamin C-ga xagga weeyaan waxyaabaha dhanka u badan laakiin labadaas bay inta badan ku kala duwan yihiin haddii kusoo koobno daweyntuna waxa weeye waa dietary waa in la siiyo cunooyinka laga helo qofka loogu ronaado dhanka kalena sidoo kale haddii xanuuna jiraan dee ama cillado keenaya dee inaan faatka lasoo nuugin ama dufanka lasoo nuugin dee inta la daweeyo taas waa gaar laakiin waxaan ka hadlaynaa haddii ay hayso un keliya
cillad ku saabsan kan yaraantiisa aan cillado kala jirin. Vitamin K-ga supplementska la siinaya ama maaragtay waxyaabaha hadda kiniinka laga helayo ee qofku uu qaadan kara la siinaya. Sidoo kale carruurta waxaa la siiya iyaga waa injection baa iyaduna jira. Marka waa taas oo intramuscular iyo subcutaneous ba lagu siin karo. Marka halkaasaan kusoo koobaynaa wixii daweynaa waxa weeyaan waa xagga iyo dhakhtarka. Qofkaas dhakhtarka gacanta ku haya bay tahay maaragtay xaaladiisa gaarka ah isagoo darisaya uu qoro xaddiga ay tahay noqon. Marka halkaasaan kusoo koobaynaa mar kale waa mahadsantihiin dhammaantiinba. Wassalaamu calaykum.